madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa cafis waxa uu fidiyay shakhsiyaad lagu eedeeyay in ay xiriir la lahaayeen kooxda Daacish. Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in madaxweyne Deni uu cafis u fidiyay shakhsiyaadkan oo ka soo jeeda gobolka Bari, kuwaas oo ku eedeysnaa inay xiriir la lahaayeen kooxda argagixisada ah ee Daacish. madaxweyne Deni ayaa la sheegay in uu amar ku bixiyay in xabsiyada laga sii daayo eedeysanayaashan oo aan si toos ah aysan ugu caddayn in ay ka tirsanayeen kooxda Daacish, balse lagu eedeeyay in ay xiriir la lahaayeen. marka laga yimaado cafiska uu madaxweyne Deni u fidiyay xubnahan lagu eedeeyay in ay xiriir la lahaayeen kooxda Daacish, ayaa saraakiil ka tirsan Puntland waxay sheegeen in ay iyaguna dhankooda ugu baaqayaan shacabka in ay kala soo baxaan dadkooda kaga jira kooxda Daacish, isla markaasna wax cafis ah aysan lahayn xubnaha kale ee ajaanibta ah ee kooxdaasi ka tirsan. ciidankan waa isku filan yahay, argagixisadaana waa sifeynaya haddii ilaahay idmo intay doontaa ku qaadato. idinka waxaa laydinka rabaa dadka ehelka ee nimanka ku jira intay goorgoor tahay inaad ka soo saartaan ciddii aad ka taqaanin, waa tiraadaan ka soo baxa dadkiina dhinac ka raaca. qof dagaalamaya hadhow haddii la qabto waa inay hebel waa saas u ahaa cid ka yeersaa ma jiro. hadda jaanis bay haystaan nimankaasi argagixisada oo reer galbeedka waxa way u badan oo Tunisiyaanka, Marookiyaanka, Etoobiyaanka oo dalkeen lagu haystaa ayagu cafis ma leh. Puntland ayaa waxay isku diyaarinaysaa in ay sameyso howlgalladii ugu cuslaa, isla markaasna weeraro ay ku qaado kooxda Daacish si ay uga sifayso guud ahaanba deegaanada Puntland. saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxay warar madax bannaan oo sheegay in ay jiraan shakhsiyaad maalmihii lasoo dhaafay ka soo goostay maleeshiyaadka Daacish, kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada difaaca Puntland. isla wararka Puntland ee ku dhex jirnay ciidamada difaaca Puntland ayaa jiha kasta waxay ka go'doomiyeen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari oo ay ku dhumaalaysanayaan kooxda Daacish. warbixin kooban oo ka soo baxday howlgalka ciribtirka ee argagixisada ee dowladda Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay isku fidiyeen, isla markaasna jiha kasta ay kaga yimaadeen buuraleyda Calmiskaad oo ay ku dhumaalaysanayaan kooxda Daacish. ciidamada ayaa isku fidiyay deegaanada ku teesan buuraleyda Calmiskaad iyagoo jiha kasta kaga yimid bartilmaameedka ay ku dhumaalaysanayaan argagixisada Daacish, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday howlgalka ciribtirka argagixisada ee dowladda Puntland. ciidamada difaaca Puntland ee daraawiishta ee ku jira howlgalka ciribtirka argagixisada ayaa hadda howlgallo amniga ka wada deegaanka Xumure iyo deegaanada ku hareeraysan ee gobolka Bari, ayaa la sii raaciyay warbixinta ka soo baxday howlgalka ciribtirka argagixisada ee dowladda Puntland. saraakiisha hogaaminaysa howlgallada argagixisada lagula dagaalamay ee gobolka Bari ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay kulamo la qaateen bulshada ku dhaqan qaybo kamid ah gobolka Bari, iyagoona kula dardaarmayay sidii ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada difaaca, isla markaasna waxay ugu baaqeen in ay kooxda Daacish kala soo baxaan shakhsiyaadka ka tirsan ee iyaga ka soo jeeda.